warbixin sirdoon oo laga qoray agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasin. warbixinta oo loo malaynayo inay qoreen wadamada Soomaaliya ciidamada ay ka joogaan ayaa looga hadlay taariikhda Fahad Yaasin. waxaana warbixinta lagu sheegay in Fahad inuu yahay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-I'tisaam garabkiisa jihaadiga ah. waxaa kaloo lagu sheegay inuu ku dhuuman jiray magaca telefishinka Al Jazeera laakiin uu ahaa sarkaal ay tababareen sirdoonka Qatar isagoo ahaa isku xiraha Al-Shabaab iyo dowladda Qatar. warbixintu waxa ay sheegtay inuu lafdhabar u ahaa ololihii doorashada ee Farmaajo isagoo isku duway koox ka tirsan ururka Al-I'tisaam garabkiisa jihaadiga ah. raggaasina waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Shoolle oo ah ku-xigeenka Fahad Yaasin, Cabdishakuur Cali Mire oo ah xildhibaan baarlamaanka ka tirsan, Jaamac Aydiid oo haatan safiirka ah dalka Turkiga, Siciid Ciid oo ah wasiirka beeraha. warbixinta waxaa kaloo sheegtay Fahad Yaasin ololihiisa hoos uga darsaday rag kale oo uu ballanqaad u sameeyey haddii Farmaajo guulaysto. raggaas waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, Taabit Cabdi gudoomiyaha gobolka Banaadir, Jamaal Xasan wasiirka qorsheynta, Cabdirashiid Maxamed wasiirka batroolka. raggaas ayaa lagu heshiiyey inay xog iyo warbixino ka keenaan ololaha doorashada ee Xasan Sheekh oo dhammaantood ay ka mid ahaayeen. waxaa kaloo warbixintu sheegtay in Fahad Yaasin iyo Xasan Khayre ay isku barteen xilligii Khayre uu ahaa agaasimaha hay'adda qaxootiga ee Norway ee NRC. dowladda Norway iyo dowladda Qatar ayaa ka wada shaqaynayay dib u heshiisiinta Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Xasan Khayre iyo Fahad Yaasinna waxay u qaabilsanaayeen xiriirinta hoggaanka Al-Shabaab iyo dowladahaasi, waana taas tan keentay in hay'adda dabagalka ee qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabataynta hubka ay ku eedeyso Xasan Cali Khayre inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. ka shakow inuu yahay agaasimaha xafiiska madaxweynaha ayaa warbixintu sheegtay in Fahad inuu weli madax u yahay kooxdii kala shaqaysay ololaha doorashada ee madaxweyne Farmaajo, kuwaasoo qaarkood ay xilal waaweyn dowladda ka hayaan halka kuwo kale ay kala shaqeeyaan ururinta xildhibaanada iyo dhismaha xiriirka xildhibaanada iyo madaxtooyada. wuxuu kaloo gacanta ku hayaa lacagta kaashka ah ee Qatar sida tooska uga timaada. arrimahaas oo la isku geeyo ayaa ka dhigaysa Fahad Yaasin inuu noqdo ruuxa ugu awoodda badan dowladda uu Farmaajo hogaamiyo. madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin ayay warbixintu sheegtay inay isku aragti wadaagaan ama isku aragti yihiin Al-Shabaab dhinacyo ay ka mid yihiin nacaybka federaalka, ciidamada AMISOM, reer galbeedka iyo doonista Soomaali weyn. labada nin ayaa la sheegay inaysan aaminsanayn ciidanka Soomaaliya una arkaan ciidan qabiil, sidaas daraaddeed ay rabaan inay abuuraan ciidanka difaaca shacabka iyo ciidan gaar ah oo lagu magacaabo Jihaas al-Amni Siyaasi markii Fahad iyo Shoolle midkood loo dhiibo hay'adda nabad sugidda oo haatan xilkeeda uu bannaan yahay.